wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ayaa waxa ay kulan u qabatay 11 wasaaradood oo kamid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland. Ujeedada shirkan ayaa ahayd in laga wada hadlo mashruuc lagu magacaabo dhaqaalaha loo dhan yahay oo ay wado wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane, ayaa ka warbixiyay mashruucan. halkan xafiiska maanta waxaan iskugu nimid wasaaradda ilaa 11 dad matalaya bulshada rayidka ah iyo dad matalaya qaybaha ganacsiga. waxaan iskugu nimid waxa weeye barnaamijka ILED oo mashruuc weyn ah oo taageerayaan deeq-bixiyaasha midowga Yurub ay taageerayaan oo waxa jirta sanadka hore aan ku daafurnay halkan Kismaayo. mashruuca asaga ah madaxweynaha Jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay halkan ku daafuray waana Soomaaliya oo dhan. marka qaybtiisi Jubbaland ayaa anagu aan ka shaqeynaa hadaan nahay wasaaradda qorsheynta isku dubaridkeeda. mashruucan marka waxaan ka shaqeynaa sidii uu hirgeli lahaa marka waxa weeye wasaaradihii ku shaqo lahaa iyo bulshada rayidka iyo dadka socda ganacsiga maadaama mashruucu horumar uu yahay ayaan iskugu keenaynaa mar walbaba. mashruuca marka waxaa jirta wuxuu yeelanayaa gudiyadii baan marka anaga ka wasaaradahan isku dubaridno. gudiyada marka waxay kala yihiin gudiga maanta aan la kulannay oo ah shaqaale farsamo oo ka socda wasaaradaha oo wasaarad walba qof uu ka socdo wasaaradaha hawshan ayada ku shaqo leh oo qof walba uu matali doono qof farsamo aqoon leh oo wixii loo baahdo u qora oo u diyaariya. gudiga kale waxa weeye agaasimayaasha guud oo ka shaqeyn doona isku dubaridkiisa iyo ka go'aan gaaridiisa iyo ku matalaadda wasaaradaha. gudiga ugu dambeeya waxa weeye gudiga wasaaradaha qorsheynta oo steering committee ah oo heer qaran ah oo iskugu tagayaan wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ah. marka saddexda nooc uu dhisan yahay. mashruucan marka wuxuu kaga bedelan yahay way kuwa hore wuxuu kaga bedelan yahay oo isla meel dhignay midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya mashruucan inuu ahaado mashruuc baahidiisu ay ka imaato bulshada oo ay ku matalayaan wasaaraduhu. wasaarad walba waxay haysaa liis ama maxaan ku radaa qoraal dheer oo ah baahiyaha bulshada ay la shaqeyso ay ku xusan yihiin haday tahay kalluumaysiga haday tahay beeraha haday tahay tusaale ahaan xanaanada xoolaha kale. marka bulshada rayidka anad baa ku matalaya ganacsatada dad baa ku matalaya. marka sida ayadaaba u shaqeynaya kormeerkiisana guudna waxa iska leh wasaaradda qorsheynta oo anigu aan u joogo sida ayadaaba ku shaqeyn doona. waxaa jirta marka inuu la tashiyo gali doono si baahiyihii loo gudbiyo. sanadka hore waxaa la sameeyay la tashi la geliyay mashaariicda ku lug leh hawlaha guud iyo dhismaha. waxaa kale oo la tashi la geliyay oo baahiyahoodii la qoray wasaaradda kalluumaysiga. bishan hadda dhexdeeda waxaa la tashi la gelinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo laga hadli doonaa muhiimadaha iyo baahiyaha xanaanada xoolaha. wuxuu ka dhici doonaa Baydhabo 18 ilaa 19 bishan. wasaaradda xanaanada xoolaha nooga qayb galaysa annaka kuwa kalena saas ay ugu xigi doonaan isku dubaridkiisu saas uu ahaanaya. waxaana kala shaqeyn doonaa midowga Yurub wasaaradda qorsheynta federaalka ah dowlad goboleedyada kale wasaaradaha ayaga aan tahay iyo qolal la yiraahdo Aadan Smith oo soo deeq bixiyaasha midowga Yurub oo soo wakiishay oo ayagu ah xiriirintii iyo farsamadii iyo reportka qoridiisii. intaas way aad iyo aad u mahadsantiin.